aragtaan ilmahan yar carabku soo baxay weynaaday xanuunsanayo damqanayo qaybo ka mid ah qurmay daadeeda waa 8 jir magaceeda waxa la yiraahdaa Shaadiye Ismaaciil Xasan sahar bal nooga warnaado soo koobaya xanuun goormu ku bilaabmay inantan way ku dhalatay carabka weyn bay dhalatay asayta markay dhalatay uu caafimaad qabay marka carabku dabada marka uu yaal carabku waa wax dabad yaal uu yahay carabkii hawadaas uu qaatay uu qalalayaa markaasuu dildilaacaya dabadna dheecaan iyo dhiig uu keenaya marka in yaroo iraaba lagu midana uu beebogsanaya oo sidii wax bogsaday uu kala noqonaya isagoo yaraanay dabeeta imika dhakhtar walba waa la soo maray Soomaaliland waa la dhameeyay Itoobiya waa la geeyay wax la inantaas dhakhtar dabadeed inay qalliin u baahan tahay xanuun kale waa laga waayay oo looga wisuuso marka waxaan istii ummadda islaamka aad magacaada Shaadiye Ismaaciil maxaad ka dalbanaysaa muslimiinta inay soo caawiyaan sidee baad haysadaan intii sanad sidee aan ku dhasho marka moobil ka cayaayo laataan ilaa bay hooyaday ila dhacdaayo laataan markuu ii bogsado waan celinaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد مالك مسعودون إلهي وعن كعبري إن إلهي أولاد يحوق يعافمات كي تبيلا كوسيا دمبي جايكي والدين تانا إلهي دافع. مدحونا عن كاب أرسلنا أنت صدقت عبد الملك مسعودون الحرية جيسين سعيسين الدولتنا كسوسات كذا إن شاء الله وأنا كسب بحجونا يعني إن شاء الله وتكسب بحجونا عبد الملك مسعودون إلهي يسكحك. waa suuragal dhammaanteenba inaynaan dhaadanayn nimcooyinka kala duwan ee Ilaahay inagu manaystay awil waxa hawsha iyo tacabka daawanaysaan uu ka mudanayaa inuu istaago si uu socdo hawltaasi la midana waxa uu maraa marka uu rabo inuu fadhiisto socodkiisu waa uu xadidan yahay waxaanan isaga suuragal u ahayn wax badan oo si fudud u qabsan karo qofka laxaadkiisa qaba magacaygu waa Awil Yuusuf Ismaaciil waxaan ku magac dheeray Awil Uriyaan waxaan ku noolahay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer adigu muddo ilaa 25 sanadooda de kulley haddii aan warbixin guud ka siiyo xagga qaab nololeedkayga de kulley qof walba irsaaq Ilaahay baa qoray alxamdulillah laakiin de kulley noloshu waxay u noqotay badweyn هذه قرن وحن تيجي تدهلاو سي عن وضع بالنها نلاشي دود برلها إيطالي نقول هيد قاعد هدي عن هلو عن كسعودو مرنا كوش قيستو ده فركيو ده نلا قرن معروف فمان هاي أرجع عاول لسارة كل هي وسكن المعلومات هي ونقول لا إيطالي ما كدي قال مرات هي كانوا كساق بصلها برهن وانسكدي قالها قبل جودبا وحن شعلان لينا ويلشير أنت عن كرسي كذا دمبر دكتور أما سريت ترى بكو حل السؤال أنا guriga masaajidka hor dhigto gaarigayga baaskiilkaygana fuulo masaajidku galo ku soo celiyo ka soo baxo waxyaabaha soo badan buu fududeyn lahaa hadii aan gaar heli lahaa marka Awil Yuusuf Ismaaciil oo aanu hore xaaladiisa ku soo bandhignay barnaamijka kaalmee kuwan isla markaana lugaha naafaka curyaan ah Ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad inuu siiyo ayaanu maanta oo ay taariikhdu tahay ama idhaade maalintii koobaad bishii ugu dambeysay 2016 ku wareejinaynaa gaari kiroola gaariga wuxuu kaga faa'iideysanayaa laba arrimood mid waa kow isaga ayuu gaarigaasi qaadaya maadaama uu yahay nin curyaana oo uu socodku dhib ku yahay wuxuu ku tagayaa meesha uu doonayo qodob labaadna uu kaga faa'iideysanayaa uu ku shaqaysanayaa gaariga uu kireynaya waa gaari taxi Ilaahay waxaan ka baryaynaa
inuu cawil u barakeeyo gaarigan aanu ku wareejinayno. alxamdulilah rabbilcaalamiin warkaygii uu cabdimaalig gudbiyey wuu ku soo guulaystay inuu gaadhigii maanta furihiisa igu wareejiyo. inkasta oo lacagaha la soo diray aanay gaadhin qiimihii gaadhigu uu jarayay, haddana cabdimaalig dib ayuu lacagtii markii uu qiyaasay inaanay gaadhin lacagtii gaadhiga ugu daray $562 taa halkan ka qiraya. waxaa kaloo jirta waraysigan cabdimaalig ama barnaamijkan uu cabdimaalig iga duubay aniga iyo dadkii dunida joogay kuwii yaqaanay bajoorati wuu iskaaya baray. gaadhigan oo kaliya maa faa'iidooyin baa iga soo kordhay, dad baa ila soo xidhiidhay. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo magacaygu yahay cawil yuusuf ismaaciil ku magac dheer cawil curyaan, waxaan maanta halkan codsi uga soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo, oo aan leeyahay mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa haddii aanu nahay dadka jilicsan, agoonta, naafada, curyaamiinta, dadka waalan dhammaan, in aad cafis madaxweyne u fidiso cabdimaalig muuse coldoon. cabdimaalig mudane madaxweyne wuxuu ahaa suxufi u dadaalaya, u adeega dadka jilicsan, oo isbaray dadkii jilicsanaa ee dalka joogay iyo kuwii dabadda joogay. example anigu waxaan ka mid ahaa dadkii cabdimaalig wax u qabtay, nin curyaana baan ahay, biraa lugaha igu jira, dee cid kaloo gaadhi iibisan waan waaye, hawshii u qabtay gaadhi baan ku helay, gaadhigaas ima ku adeegsado waxna ku qabsado. sidaa awgeed dee mudane madaxweyne waxaan ku odhan lahaa bini aadamku dee wuu khaldamaa, cabdimaalig muu ahayn nin xadhig loo quudho. aad iyo aad iyo aad iyo aad baan kuugu ducaynaynaa. fadlan codsigayga noo tixgeli. cabdimaalig muuse coldoon waxaanu ka codsanaynaa inaad xorriyaddiisii iyo madax bannaanidiisii u soo celiso, khaladkii uu galana aad ka saamaxda saamaxaad madaxweyne.